Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. WhatsApp-ka waxaad waqti badan qaarkiin la daala dhacayseen sawirada iskood isku kaydinaya maskaxda moobilka, kuwaasoo idinka yimaada guruubyada iyo shakhsiyaadka kale ee idinku jira WhatsApp-kiina. Haddaba maanta waxaan isku dayi doonaa cilada inaan xalino, annagoo xakamayn doona sawirada, fiidiyoyada, codadka iyo dokumentiyada had iyo jeer automatically ama si amar la'aana isku save gareeya, kuwaasoo had iyo jeer dhibaato u geysta in uu memorygaaga ama storage-ka maskaxda moobilkaagu ay buuxsamaan. Haddaba aan ciladan wada xalino. Aynu wada dhaqaaqno. Ugu horreyn waxaad aadaysaa xagga ay ku qoran tahay WhatsApp. Isla marka aad soo gasho WhatsApp-ka, waxaad imaanaysaa shaashadan weyn ay ku qoran tahay Chat, Status, Calls iyo weliba WhatsApp. Waxaad ugu horreyn fiirinaysaa xagga ay saddexda dhibcood ee isdul yaalla ayaad taabanaysaa. Dabadeed waxaad aadi doontaa xagga ay ku qoran tahay Setting, adigoo ka aadi doona xagga ay ku qoran tahay Data and Storage Usage. Haddaba xaggan marka aad timaado, miidiyaha in ay automatic u download garaysnaan laba ayuu kala qaadi doonaa. Qaybta hore waxa uu qaadi doonaa goorta aad isticmaalayso ama aad isticmaalayso mobile datadaada. Qaybta labaadna waxa uu isticmaali doonaa marka aad ku xidhan tahay Wi-Fi. Haddaba si aan u xalino ciladan, waa inaan galnaa marka aan rabno inaynu daatada isticmaalayno ama uu noo furan yahay 3G-geenu. Haddaba ma ogashahay in sawiradu automatically u degaan marka aan isticmaalayo 3G-ga? Waan ka qaadayaa tigta, uma baahni in ay sawiradu automatic u degaan. Sidoo kale ma raba codku isaguna sidoo kale inuu automatic u dego. Fiidiyogu sidoo kale muuqaaladu waxaan u baahanay iyaguna sidoo kale inaysan degin. Dokumentigu sidoo kale waxaan rabaa inay degin. Haddaba marka aad sidan oo kale ka dhigato, wax kasta oo lagu soo diro, haddii muuqaal yahay iyo haddii cod yahay, marka horta aad isticmaalaysa 3G-ga, waxa uu u baahan doonaa inaad adigu taabato ood amar siiso inuu dego. Laakiin amar la'aantaada suurtagal ma noqonayso inay degaan. Taasi waa qaybta koowaad eenu ku xakamaynayno marka aanu daatada ama 3G-geena aanan rabin inay automatically u degaan wax kaste. Goorta aan ku xidhanahay Wi-Fi-gayga ama aan isticmaalayo Wi-Fi ka mid Wi-Fi-yada had iyo jeer aan isticmaalo, waxay xog kasta oon u baahanahay sida sawirada iyo muuqaaladu marka aan ku xidhmo automatically ayay u wada degi doonaan waxaan oo dhan. Haddaba si aan ugu diido ama uga xakameeyo, waxaan aadi doonaa inaan tigta ka qaado sawirka, fiidiyoga tigta codka ka qaado, fiidiyogana ka qaado, dokumentigana ka qaado. Dokumenti marka aan leeyahay waxa weeyaan wax kasta oo ka mid ah sida PDF-ka, Word-ka, Excel-ka ee dhammaan la isku weydaarsada goobahan oo kale. Isla markaan intaa isticmaalo, markaan labadoodba isticmaalayana waxaan ka dhigi doonaa inaan dhammaantood tigta ka qaado. Xakamaynta intani waxay ku sahli doontaa inaad xakamayso in aad xogtaadii dhowrato. Call setting-kani waxa had iyo jeer uu yarayn doonaa daatada aan isticmaalayo goorta aan hadlayo. Marka waxaan furi doonaa in aan tigta saaro si uu u furmo marka aan calling isticmaalayo xogta aan daatadan isticmaalaya inay noqoto mid daciif ah. Taasi waxay ii sahli doontaa in ay 3G-ga lacagta igu jirtaa ama inta aan ku shubto haddii 1MB tahay iyo haddii markaasi 300MB tahayba ay suurtagal noqoto inay ii badbaado. Intaa marka aad samayso, waxaad ka badbaadi doontaa wax kasta oo had iyo jeer ku dhibayay oo ah in codadka iyo fiidiyoyadu ay automatically ay u degaan. Hadda waad xalisay ciladan. Waxaan rajaynayaa in maanta kadib aadna u baqi doonin inay buuxsamaan memorygaaga iyo storage-kaaga WhatsApp-kaaga awgeed. Ma jiri doono sawiro iskood isku soo geli doona. Fadlan gaadsii walaalkaaga arrintan ka cabanaya. Waa anigoo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.